بسم الله الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم soonka maalinta caashuura soonkeedu waa sunne soo maray heerar kala duwan oo ay ka mid ahayd inuu waajib ahaa waxaynu se u qodobayn doonaa sida tan kow qurayshi waa soomi jirtay nebiguna sala allahu calayhi wasalama waa soomi jiray markuu madiine yimidna wuu soomay dadkana wuxuu amray inay soomaan laakiin markii ramadaanta la farad yeelay ayuu yidhi qofkii rabaana ha soomo qofkii rabaana ha iska daayo waxaa arrimahaas tusaya xadiidka caaisha radiallahu canha ay ku tidhi kaana yowmu caashuuraa'a yowman tasuumuhu qurayshun fi ljaahiliya wa kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yasuumuh falama qadima almadiinata saamahu wa amara annaasa bisiyaamih falama furida ramadaanu qaal man shaa'a saamahu waman shaa'a tarakah rawaahu albukhaariyu wa muslim labo nebigu sala allahu calayhi wasalama wakhtigii hore ee uu madiine yimid wuxuu jeclaa inuu ku waafaqo ahlulkitaabka wixii khayr ah ee ay samaynayaan maadaama ay kitaab hore haysteen sida qiblada oo kale iyo wixii aan isaga wax laga amrin ama rabbi uu in waxaasi xaq yihiin u sugay waxyaalaha uu ku waafaqay waxaa ka mid ahaa soonka maalinta tobnaad ee muxaram sida uu tusayo xadiidkani عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه رواه البخاري ومسلم رواية مسلم وحي كدريسي fasaamahu muusa shukran marka nebi muuse wuxuu ahaa nebi alle waxaana gaalada xaqdarrada ku sheeganaysa oo isku xijinaysa uga dhow muslimka oo haysta xaqii loo soo dhiibay muuse iyagaana mudan inay alle uga shukriyaan badbaadinta muuse iyo intii raacsanayd iyo raacidda sunnadiisii markii islaamku sugo ilaan lama ogola qofka muslimka ahi inuu yidhaahdo nebi hebel diintii lagu soo dejiyey sidaas ahayd saasaa ka mid ahayd oo saasaan iska raacaya looma ogola waa inay tahay wax diintu sugtay saddex nebigu sala allahu calayhi wasalama wuxuu markii hore ka dhigay soonka maalinta caashuuraada waajib oo wuu amray sida ku cad labadii xadiid ee hore oo waxaa ku jiray xadiidkii koowaad wa amara annaasa bisiyaamih xadiidkii labaadna waxaa ku jiray fasaamahu wa amara bisiyaamih iyo xadiidkan can mucaawiyata ibni abi sufyaana radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul ina hada yowmu caashuuraa maanta waa maalintii caashuuro walam yuktab calaykum siyaamuh la idinkuma farad yeelin ama waajib yeelin inaad soontaan wa ana saa'imun laakiin waan soomayaa anugu faman shaa'a saam qofkii doonaa ha soomo waman shaa'a falyuftir kii doonaana ha afuro rawaahu albukhaariyu wa muslim marka waa sunnadaas ee waajib ma aha afar markii ramadaanta la waajibiyey ayuu ka fududeeyey nebigu sala allahu calayhi wasalama ummaddiisa oo ka dhigay ikhtiyaari ama mid qofku uu iska dayn karo soomina karo sida xadiidka koowaadba ku cad oo xadiidka koowaad waxaa ku jirtay falama furida ramadaanu qaal man shaa'a saamahu waman shaa'a tarakah sidoo kale xadiidkii mucaawiye ee xadiidka saddexaad noo ahna waxaa ku jiray wa ana saa'imun faman shaa'a saama waman shaa'a falyuftir shan wax yar nebiga sala allahu calayhi wasalama dhimashadiisii ka hor oo ku aadanayd wakhtigii la is-amray in la khilaafo ahlulkitaabka wakhtigaas ayaa marka nebiga sala allahu calayhi wasalama waxaa lagu baraarujiyey in ay caashuuraada weyneeyaan yuhuudda iyo nasaaraduba markaas ayuu sala allahu calayhi wasalama wuxuu ishaaray in maalinta sagaalaad tobanka lagu daro oo la raaciyo oo maalinta caashuurada lala soomo si loo khilaafo yahuudda xadiid uu warinayo ibnu cabbaas radia allahu canhuma wuxuu yidhi xiina saama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yowma caashuuraa'a wa amara bisiyaamihi markii uu nebigu sala allahu calayhi wasalama soomay maalinta caashuuro oo uu amray in la soomo qaaluu waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allahi rasuulkii allow innahu yowman tucadimuhu alyahuudu waannasaaraa waa maalin ay yahuudda iyo nasaaradu weyneeyaan faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalama uu ugu jawaabay faإida kaana alcaamu almuqbilu in shaaa allahu sumna alyowma ataasic marka sannadka soo socdaa uu yimaado haddii alla idmo waxaan soomi doonnaa
maalinta sagaalaad yacni maalinta sagaalaad baan ku dari doonnaa maalintii tobnaad ee dantu ahayd qaal wuxuu yidhi ibnu cabbaas falam ya'ti alcaamu almuqbilu xataa tuwafiya rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ma imaanin sanadkii soo socday ilaa laga oofsaday nebiga sala allahu calayhi wasalam yacni nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa dhintay intii uusan sanadkii soo socday imaanin marka maalinta sagaalaad ma uusan soomin nebigu sala allahu calayhi wasalam keliya wuxuu dhintay isagoo cashuurada maalinta tobnaad keliya sooma laakiin si loo khilaafo wuxuu rajeeyey in sanadka soo socdo sagaalkana la soomi doono 6 riwaayado dhowr ah oo qaar daciif yahay ayaa kala tusaya in soomidda maalinta cashuuro ay ku bannaan yihiin 1 in la soomo maalinta sagaalaad maalinta cashuuro maalinta tobnaad ah iyo maalinta 11aad 2 in la soomo maalinta sagaalaad oo ah maalinta cashuurada ka horeysa iyo maalinta cashuurada maalinta tobnaad ah waana sida uu nabigu sallallahu alayhi wasallam rabay 3 in la soomo maalinta tobnaad oo cashuurada ah iyo maalinta 11aad oo ka dambaysa 4 in la soomo maalinta tobnaad oo cashuurada kaliya waana sida ugu yar nabiguna sallallahu alayhi wasallam samayn jiray ahlul kitaabka intii aan khilaafkooda la is amrin marka mar walba maalintii tobnaad oo cashuuradu way la socotaa laakiin mar maalin baad ka hormarisay mar maalinna waa ka hormarisay maalinna waa ka dambaysiisay marna maalin baad ka dambaysiisay ama waxaad dooratay inaad kaliya soonto ayadaa waxay tahay waxa ajarka badan lagu helayo xadiidkii ugu dambeeyaynu soo qaadanay inuu nabigu rajeeyey maalinta sagaalaad inuu horteed soomi doono horena u soomi jiray 10kana waynu arkaynay riwaayad uu wariyey imaamu axmed musnadkiisa oo ibnu cabbaas uu warinayo oo sanadkeeda dacfi ku jiro ayaa waxaa ka mid ahayd inuu yidhi suumuu yowma cashuuraa wa khaalifuu fiihi alyahuud suumuu qablahu yowman hortiis maalin sooma yacni maalinta sagaalaad wa bacdahu yowman maalinta 11aad marka 9 10 11 riwaayadaasaa laga qaatay imaamu axmed riwaayad kale iyo ibnu khusayma ay warinayaanna oo iyana sanadkeeda wax ku jiraan waxaa iyadana ku jirtay suumuu yowman qablahu aw yowman bacdahu ama maalin ka hormariya ama maalin ka gadaal mariya marka doorashooyinka kalena halkaasaa laga qaadanaya iyagana marka maalinta tobnaad ee muhiimka ah ee intaa loo marayo ajarkeedu talow muxuu yahay 7 ajarka lagu helayo soomidda maalinta cashuura nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri siyaamu yawmi carafata ahtasibu ala allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu wa siyaamu yawmi cashuura cashuurada maalinta ah soomideedo ah maalinta tobnaad ee bisha muharram ahtasibu ala allahi alla waxaan uga ajar tirsanayaa an yukaffira as-sanata allati qablah inuu sanadkii hore dambigiisii igu dhaafo rawaahu muslim ayaa xadiidkaasna wariyey marka ajarkeeda waad aragtaa hal maalin soomideed ama haddaad sunnada kale ku darto maalin ka hormari laakiin mar walba maalinta tobnaad ee ajarkaas leh yay ku seegin sanad dhan baa dambigeeda lagugu dhaafayaa 8 dembiga lagu dhaafo soonka iyo salaada iyo cibaadooyinka la midka ah waa dembiyada yaryar kaliya oo dembiyada waaweyni waxay u baahan yihiin tawbad adoonka ka timaada dembiyada waaweyni waa khatar culumadana qaar baa kutubka alifay waxyaalaha uu waciidku ku soo arooray xadiis qaarkood kulminaysana waa jiraan oo xadiis qayb kamida dembiyada waaweyn kulminaysa sida shirkiga cuquuqul waalideynka sixirka zinada iyo wixii lamid ah ka waran hadduusan dembi yar lahayn ama dembi weynba uusan lahayn sidaynu arki doono dembiga weyn culimadu waxay leeyihiin waa inay ka khafiifisaa laga yaabaa laakiin ma dhaafayso maadaama ay toobad u baahan tahay marka haddii dembi yar iyo mid weynba uusan qofku lahayn xasanaad ayaa looga dhigaa oo loogu bedelaa yacni soonkaas oo darajooyin baa loogu siyaadshaa hadduu kabiiro leeyahayna waxaa loo rajaynayaa in ay ka fududaynayso kabiiradaas sida uu imaamu annawowi u sheegay oo sidaa inoogu sharxayba 9 shiicadu cashuuraada waa garab mareen qaarkood waaba maalin kale ayay yidhaahdeen qaar xadiidyadeeda ma ogola iyadoo weliba ay kutubtoodu qorayso kaba darane waxay maalintaas xusaan xuseen radiallahu canhu oo ay iyagu dabinkii lagu dilay inta geliyeen haddana uga baxeen qaabka ay ku xusaan oo shafgaraacidda mindiyo isla dhaca iyo dhiig iska keenka ah wax raad ah kuma laha diinta islaamka xuseen radiallahu canhu waa سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل كيدي وي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيا دلي نبي صلى الله عليه وسلم إساقا يا حسن وحكوت المامي سيدة شباب أهل الجنة نقم حقان نقمنا تشعلا لكن زورا وباطلا أي هدنا وحان
diin ahayn ay diin ka dhigaan oo ay maalintaa ku xusaan marka caashuuraa haddaad maqasho tv ka socoto oo dad dhiig iska keenayo mindiya isla dhacaya aad aragto waa dadka noocaas oo isku tilmaama shiicada inay yihiin xaqiiqada qisadii xuseen radiallahu canhu dhalasho ilaa dhimasho oo dhammaystiranna waxaan hoos kuu gelinaynaa faahfaahinta videoga ka hooseysa cashar youtube ah oo nin shaykhii si fiican arinta xuseen uu ugu sharxayo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته